watahay dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkan iyo xogta iyo xulashada wararka toddobaadka waxaana ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan. khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. dowladda Itoobiya oo jabhada oo nalaf ku eedeysay inay ka dambeyso burburka iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi. dowladda Ingiriiska oo mar kale lagu eedeeyay inay balaayiin dollar siiso dowladda Itoobiya isla markaana lagu dhibaateeyo dad shacab. qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaanan ku qaada dhigi doonaa wararka ugu xiisaha badan caalamka. warsidaha Africa Intelligence ay leedahay sirdoonka Faransiiska ayaa daabacay qoraal xogogaal kaasi oo ku sheegay inuu jiro khilaaf xoog la u dhaxeeya madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo taliyaha militariga dalkaasi Jabuuti General Zakaria Sheikh Ibrahim. warbixinta ayaa lagu sheegay in wasiirka difaaca ee dalka Jabuuti Ali Hassan Badon iyo wiilka uu soo degay yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ay xabsi guri galiyeen General Zakaria Sheikh Ibrahim iyagoo ku eedeeyay inuu sameeyo amar diido. dhanka kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa u xil saaray wiilka uu soo dega u yahay ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti Abdulqaadir Maxamed Kaamil inay maamulaan shaqooyinka uu qaban jiray General Zakaria Sheikh Ibrahim. madaxtooyada dalka Jabuuti ayaa la sheegay inay la wareegeen dad si gaar ah loo xulay kuwaasi oo ka soo jeeda qowmiyadda Canfarta ee dalka Jabuuti kadib markii uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isku aamini waayay qabiilkiisa. dowladda Itoobiya ayaa jabhada oo nalaf ku eedeysay inay hoggaanka u qabatay ururada mucaaradka ee dalka Itoobiya kuwaasi oo sii xoogaysanaya sanadadii u dambeeyay. saraakiil ka tirsan xisbiga TPLF ayaa sheegay in dhammaanba qowmiyadaha dalka Itoobiya doonayaan in lagu kala tago maamulka guud ee dalka iyadoo aysan saadaashu wanaagsanayn. qoraal sir oo ka baxsaday TPLF ayaa lagu sheegay walwalka haysta iyo cabsida ay ka qabtay jabhada oo nalaf. qoraalkan ayaa laga saaray baraha bulshada iyadoo website-ka Walter Information Center oo markii hore lagu daabacay isla markiiba la xidhay. dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii uu taliyihii hore ee ciidamada militariga ee dalka Itoobiya oo qowmiyadda Tigreega ka soo jeeda ku taliyay in dowladdu wax ka bedesho siyaasadda dalka lagu hogo haddii kale lagu kala dhaqaaqi doono maamulka ka arrimiya dalkaasi Itoobiya. dowladda Ingiriiska ayaa mar kale lagu eedeeyay inay qayb ka tahay xadgudubyada ka dhacay dalka Itoobiya sida lagu daabacay wargeyska The Guardian oo ka soo baxa wadanka Britain. warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska The Guardian ayaa lagu sheegay in Britain sanad waliba siiso dowladda Itoobiya deeq lacageed oo gaaraysa 1 bilyan oo pound taasi oo loo isticmaalo xasuuq jidil kufsi iyo dhibaatooyin lagula kaco dadka shacabka ah ee dalka Itoobiya. warbixinta ayaa lagu sheegay in deeqaha la siiyo dowladda Itoobiya loo isticmaalo sidii koox gaar ah u sii maamuli lahayd dalka iyada cabsi gelin iyo ugaarsi xoog leh lagu hayo axsaabta mucaaradka iyo kooxaha u dooda xuquuqul insaanka iyadoo sidoo kalena dambi laga dhigay xorriyatul qowlka iyo in dadku ka hadlaan siyaasadda dalkaasi Itoobiya. waaxda horumarinta caalamiga ee dalka Britain ayaa malaayiin dollar ku bixiso guuna iyo laaluush lagu dhibaateeyo dadka shacabka ee dalka Itoobiya. hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay inay wax ka jiraan eedeymaha loo jeediyay dowladda Britain gaar ahaan waaxda DFID loo yaqaano oo maamusha balaayiin lacag oo lagu deeqo wadamada saboolka kuwaasi oo sidoo kalena la sheegay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka. dowladda Turkiga ayaa sii daysay 758 ka mid ah ciidamada militariga dalkeeda kuwaasi oo xabsiga la dhigay kadib markii uu fashilmay afgambigii militariga dhicisoobay. maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in aan wax caddayn loo haynin dambiga loo haysto dhammaanba maxaabiistan isla mar ahaantaana amar ku bixisay in xariga laga sii daayo.
231 ka mid ah askartani ayaa maxkamaddu amartay in la sii hayo iyadoo uu wali socdo baaritaanka la xidhiidha tuhunka la qabo doorka ay ku lahaayeen afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi.